Assalaamu calaykum. Casharkan waxaan ku qaadanaynaa waxa la yiraahdo flexible box ama flex box model. Flex boxka wuxuu inoo ogolaanayaa in markaas elementiskeenna uu inoogu soo bandhigo qaab isku mid ah oo nidaamsan. Sidoo kale intan elementiska lagu soo bandhigaa flex boxka waxay noqon doonaan kuwo responsive ah oo mobile screenka iyo desktop screenka waxay ugu soo muuqan doonaan qaab isla eg uguna nidaamsan mid kastana ugu habboon sida ugu habboonida ugu soo bandhigi doona mobile screenka iyo desktop screenka. Marka hore inta casharkeena u guda gelin waxa inoo qoran halkan element oo container ah sidoo kale inta waxa inoogu dhex jiraan ilaa iyo 4 div ayaa inoogu dhex jiraan ama 4 element mid kastana uu wato class name isaga u gooniya markaas item 1 2 3 iyo 4 markaas oo class name iska ah. marka u nimaano qaybteena CSS-ka waxa inoo qoran div container-kan divka waxa waaye afartan div markaas meesha inoogu jiro ayaa waxa siina markaas styling gooni ah oo background color siina border iyo pattern iyo waxa siina color caadi ah siina farta colorka qaadanaysa wax kale inoo qoran sidoo kale result inoo soo baxay markaas waxa waaye styling markaas oo ay tabska marka aragno in flex boxka ku soo bandhigno ayaa waxa u sameeyay styling-kan noocan ah waayahay marka wax kale inoo qoran intaan ayaa inoo qoran marka waxa gudagalaynaa in elementskeena aan gelino flex box ina markaas aan gelino kaliya waxa sameeynaa markaas inaan dhahno display flexes display flexes marka dhahno hadda elementskeena waxa inoogu jiraan ama waxay inoogu jiraan markaas flex boxka iyo markaas inoogu dhex jiraan marka hadda display flexes dhan waxa arkaynaa in elementska markaas ay noqdeen kuwo row ah oo si dhinac yaalo midka kalena oo markaas uu ku xogsado iyadoo markaas waxa sameyn karnaa in markaas flex boxkeena ama flexeskeena ina direction ka bedelno anagoo dhigi karno flex direction oo ka dhigayno column oo hadda uu yahay row hadda yahay uu si dhinac wala hadda waxa ka dhigi karnaa kuwo line oo line mid kastaba uu noqon doono hadda markaas dhan waxa arkaynaa in markaas sidiisa hore uu ku soo noqdo oo mid walba line gooniya uu noqdo sidoo kale intan flex direction wuxuu noqon karaa laba mid ama inuu column noqdo ama inuu row noqdo row waxa waaye sida hadda aragna waaye oo flex direction-ka sida default-ga markii elementska lagu soo bandhigo flexes wuxuu noqon doonaan kuwo by row isna yaalo markaas waayahay marka comment ka shakarnaa oo kaliya intaan hadda qoranay marka waxa sameeynaa in sidoo kale inta aan sii karno size-na markaas aan sii karno anoo dhahayno flexes 1 marka flex 1 dhan waxa arkaynaa in midkaan flex 1 ka siina uu markaas intaanan oo ku wada weyn yahay sidoo kale inta mid kastana flexes 1 aan sii karno item 3 dan sidoo kale inta flexes 1 aan siina flexes 1 sidoo kale inta item 4 kisagana aan siino flexes 1 marka hadda waxay noqdeen intooda baad waxay noqdeen kuwo isla wadaag iyo markaas noqdeen hadii mid kamid ah markaas aan siino 2 oo aan dhahno flexes 2 waxa arkaynaa in markaas midkan flexes 2 uu ka space weyn yahay intaan kale marka flexeska mid walba wuxuu siinayaa markaas space isla eg ayuu markaas uu siinayaa mid kastaba si isla eg ayuu markaas intoodaba isku daba dhigaya marka hadii aan dhahno flexes 2 markaas wuxuu siinayaa laba jibaar space ku kuwansi kuwan hadii flexes 1 ay qaateen midkan aan laba dhaana wuxuu siinayaa laba jibaar intii kuwan la siiyay hadii markaas isaga 3 dhaana wuxuu noqonayaa markaas in flexes 2 saddex jibaar la siiyay kuwan meesha 1 laga siiyay in size-ka la siiyay kuwan oo isaga markaas saddex jibaarkooda la siiyay sidoo kale intan waxa sameyn karnaa order ahaan oo sida isugu xigaan inaan wax ka bedeli karno anagoo qaybtii CSS-ka waxba aday anagoo qaybtii HTML-ka waxba ugu bedelin tusaale ahaan hadda item 1-kan waxa ku xiga 2 iyo 3 iyo 4 oo qaabka HTML-ka ugu soo qornay sidii iskugu kala xigan marka anaga waxa awoodnaa inaan ka bedelno CSS gudaheeda in markaas elementska markaas hadda 2 1 ka keeni karno 1-kana 4 ka geey karno markaas order qaabka iskugu xigan inaan ka bedeli karno kaliya waxa dhahaynaa order-kan inaan ka dhigno 4 mid ku dambeeya ayaa ka dhigaynaa midka number 1 ka ah ayaa waxa ka dhigaynaa midka ugu dambeeya marka hadda safe dhaan waxa arkaynaa item 1-ka inuu tagay 4 oo markaas oo kii u dambeeyay markaas uu taga markaas sidoo kale inta midkan 2 geey karno markaas meesha uu markaas midka saddexaad ka dhigi karno anagoo dhahayno order 3 marka order 3 dhaan waxa arkaynaa item 2 markaas inuu meeshan uu tago
haddaan rabno item 4 inaan number 1 keeno waxaa dhaynaa kaliya in item 4 aan tagno oo aan dhahno order 1 markaas waxaa arkaynaa in item 4 oo weli meeshiis joogo meeshan item 3 markaas asagana waxaa siinaynaa order markaas 3 ayaa siinaynaa marka hadda item 4 wuxuu yimaaday midka koowaad noqday item 1 wuxuu noqday midka ugu dambeeya iyadoo marka html-ka soo qorayna qaabka isku kala xidhan ay tahay 1 inuu soo horeeyo balse markay CSS kala yimaaday oo Fluxus gudihiisa isku kala bedelna markaas elementskeena orderkooda qaabka isku xigan inaan ku kala wareejin karayno marka waa iska comment garaynayna intaan sidoo kale inta waxaan ku xijinayna markaas inaan isla fiirino align itemska tusaale ahaan Fluxuskaada gudihiisa ama itemskaada markaas Fluxuskan kugu jiro mid ka mid ah ayaa ka weyn inta kale tusaale ahaan hadda midkan waxaa siinayna midkan hadda heeda siinayna dherer siinayna markaas heedkiisa waxaa ka dhigaynaa 200 px oo kaleento save markaa dhahno waxaa arkaynaa markaas in element kasta markaas uu raacay oo marka midkan hadda 200 px markaa hadda midkan siinay waxaa arkaynaa marka in dhammaantood ay la wada ekaadeen midkan heedkiisa 200 px ka dhigna intoodaba inay wada qaateen heed isku mid ah midaasna waxaa sabab u ah markaas align itemska wuxuu yahay markaas strange by default strange aad markaas save dhahno wax isbedel ah ma arkayno marka haddii aad dhahan tusaale ahaan align items Fluxus indi marka hadda dhahno waxaa arkaynaa in kuwan dhan ay size-kooda hor kusoo noqdeen markaasna ay tageen meesha ugu dambeysa markaas item 1 maxaa yeelay item 1 waxaa siina markaas 200 oo heeda siina markaas 200 oo heed ayaa siina marka intoodaba ay tagayaan in markaas size-kooda caadiga ay yihiin balse markaas ay noqdeen kuwa markaas meesha ugu dambeeya markaas heedka item 1 meeshiis ugu dambeeya markaas ay tageen sidoo kale waxaa dhici karnaa Fluxus start oo Fluxus start marka dhaano waxay tagayaan markaas meesha ugu koreysa markaas meel iskala sinmayaan macnaha meel iskala sinmayaan itemkan midka kale isticmaali karana waxa inaan dhahno center marka center dhaanana waxay sameynayaan markaas in qaybta dhexe markaas ay la wada sintaan balse by default ahaan waxa waaye strange waa inay markaas isku fidiyaan mid ka mid ah hadii markaas uu ka dheer yahay midkaas la wada ekaana dhamaantood hadda markaas ay dhaano strange default ahaantood waaye marka waxaan rabnaa marka sidoo kale waxaan sameyn karnaa dhaana in elementskeena aan space u dhexeysiino markaas aqal qaadno si markaas nidaamsan marka waxaan sameyn karnaa in Fluxuska iska tirno Fluxus 1 kan oo kaleento inaan iska tirno markaas si markaas aan u siino u siinana markaas widis inta rabna anaga markaas ayaa sii karnaa widis siinana sidoo kale comment waa iska saari kartaa Fluxuskan Fluxus 1 ka marka taan markay taa waxaan sameynaynaa in mid kasta aan siino inaan markaas aan siino widis waxaan siinaynaa marka balac waxaan siinaynaa ilaa iyo 100 px oo kaleento ayaa mid kasta siinaynaa koobiya intaan soo dhahanaynaa item 2 sidoo kaleento waxaan siinaynaa 100 px meeshaan afartii nooga dhacday okay item 3 gan sidoo kale waxaan siinaynaa 100 px item 4 kana marka waxaan siinaynaa 100 px marka had save dhaana marka intooda bad waxay haystaan 100 px ayaa markaas intooda ba siinay marka waxaan sameyn karnaa inaan dhahno justify content center marka hadda dhahno waxaa arkaynaa jaashada markaad soo weynaysana in markaas elementskeena ay dhexda yimaadeen marka waxaan sameyn karnaa shaashada wax yar inaan soo ka soo dheereysano sidii marka hore ahayd si markaas si aan u aragno in elementskeena markaas centerka ay joogaan waayahay midkaan kalena wax yar soo yareysano okay marka sidoo kale waxaan sameyn karnaa inaan dhahno justify content space between waa markaas in mid kastaba oo markaas space u dhaxeeyo hadda mid kasta waxaa arkaynaa markaas in mid kastaba uu u dhaxeeyo space inuu markaas u dhaxeeyo sidoo kale waxaan sameyn karnaa inaan dhahno space around markaa dhahno markaas waxay tagaysaa in geesaha markaas wax ka badan hadda space between-ka iyo space around-ga waxa waaye space between markaa dhahno labadan geesaha xigo derbiga ayuu ku dhigi doonaa midkan derbigan kale ayuu ku dhigi doonaa midkan kalena derbigan kale ayuu ku dhigaya markaa dhahno space between like space around markaa dhahno markaas geesaha xataa waxa ka galaya markaas space ayaa laga gelinaya laakiin space between markaa dhahno kaliya dhexda bes oo galaya space hadda haddii aan isla fiirin hal mar waan dhahno space
between marka hadda dhahno waxaa arkaynaa markaas elementiga markaas mid kastaba in uu geesaha kasoo bilaabanayo balse spaceka ugu badan oo dhexda ka galaya markaas like space around markaa dhahno si hadda fiiri tusaale ahaan spacekan hadda meeshan ka maqan iyo midka meeshan ka maqan islama eko midkan space yar waaye balse midkan space weyn waaye like space around markaa dhahno oo safe dhahno hadda waxaan arkaynaa marka spaceka meeshan iyo meeshan isku mid oo markaas oo spaceka hadda meeshan ka banaan iyo midka sidoo kale meeshan ka banaan waa kuwo isla eg markaas sidoo kale intana waxaan dhihi karnaa space infinitely oo markaas safe dhahno isagana waxa waaye space around camal waaye balse markaas spaceka ugu badan waxay noqon doontaan geesaha ayay noqon doonaa markaas labada geesooda space ugu badan markaas qaadan doona intooda waxa waa macnaha in qaab lagu kala geenaya markaas si isla eg markaas ayaa elementiskaada lagu kala fogeynayaa oo qaab siman markaas sidoo kale intana waxaa samayn karnaa markaas inaan u sameyno wrapping waxa la yidhahdo tusaale ahaan hadda haddii aan soo jiidno elementigan oo saan soo dhahno waxaa arkaynaa inuu soo yaraanayo marka dambena uu isku dhigaayo marka waxaa rabnaa marka inuusan isku dhigin oo markasta shashada ay soo yaraato waxaa rabnaa in labadan kale ee hoos usoo degaan maxaa yeele markasta markaa sii yareyno elementiska wuu sii yaraanaya markaas way sii yaraanayaan itemskeena marka waxaa rabnaa in oo markaas markii shaashada lasoo yareeyo ay soo degaan ee leenka kale soo galaan marka waxaa sameyn karnaa inaan dhahno fluxes rab kabacdina waxaa dhahaynaa rab marka had safe dhahno haddii hadda markaa soo yareyno waxaa arkaynaa in item 4ka markaas uu soo galay leenka markaas ka hooseeya uu soo galay balse waxaa arkaynaa in heydkooda lambar 1 kaliya oo heydka haysto item 1 kaliya oo heydka haysto marka waxaa dhacaysa markaas in markuu midkan leenka kale kasoo baxo in markaas oo heydkiisa caadi uu kusoo noqonayo maxaa yeele isaga hadda leen gooni uga fadhiyo marka dhammaantood haddii aad siino heyd isla eg sidoo kale intana dhammaantood hadda koobi soo dhahno oo item 2gana aad siino heyd sidoo kale into 200 bgs midkan kalena 200 bgs aad siino midka u dambeeyana markaas aad siino 200 bgs markaad safe dhahno waxaa arkaynaa marka heydkiisa sidiisa u haysto wuuna soo degaya markaas sidoo kale markaas soo yareyno 3ga iyo 4ka ee leen cusub ka bilowdeen markaas ay soo degeen waxaa arkaynaa markaas fluxes raabkan waxaa macnaha in markaas markii shaashada markii lasoo yareeyo kaleeto in leen cusub ka bilowdaan marka aysan soo yaraanin aysan sii yaraan laakiin marka raab ka saarna waxay tegaysaa in itemska markaas iyaga laysku yareeyo oo iyagu leenkooda ku jiraan laysku soo kuuso balse markii fluxes raab la geliyo in aysan dhaafi doonin wadhiskooda boqol px inaysan dhaafi doonin oo wadhiskooda ugu yaraan markuu boqol px markay yimaadaan uu kan kale leen cusub ka bilaaban karo hadda waxaa arkaynaa marka in saas ay tahay oo hal leen ay wada noqonayaan oo mid kastaba space between uu yahay markii lasoo yareeyana oo markay isku wada yimaadaan oo spaceka markuu dhammaan rabana oo mid ka dambeeyo leen ka hooseeya uu ka bilaabanayo marka cashirkeena fluxes boxka intaan ayaa iskula fiirinayna oo inta ugu muhiimsan fluxeska aan iskula eegayna markaas fluxeskana markaas muhiimad fiican u leeyahay marka websitekaada dhisaysid oo wuxuu kaa saacidayaa in elementiskaada markaas uusan nidaamsan oo markaas uu isku ka aadiyo sidoo kaleetana uu responsive yahay oo hadda waxaa arkaynaa markii uu shaashada markii lasoo yareeyo kaleeto oo leen cusub ka bilaabanayo wixii markaas ay shaashada kusoo yaraataa marka cashirkeena fluxes boxka intaan uu ku egyahay wassalaamu calaykum